waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubal News qodobada wararka daawa doontaana waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheikh oo maanta soo gabagabeynaya socdaalka uu ku joogo wadanka Djibouti iyo dib u dhac ku yimid safarkii uu ku aadi lahaa dalka Itoobiya madaxda mucaaradka iyo hogaamiyaha Somaliland oo kulan gaar ah maanta ku yeelanayaan magaalada Hargeysa kadib markii uu shalay baaqday kulankaasi iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku maqli doontaan caqabad hor leh oo la soo diristay ganacsatada Kenya ee qaadka loo fasaxay qodobadaasi waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka Hubal News fadlan daawada haddaad ku cusubtahay janalkan qayb ka noqo saaxiibada kale wararka joogtada aan halkan ku baahino aragtidiinana halka oo sanugula wadaaga muuqaalkana u sii share gareeya asxaabtiina laagtiina waa inoo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa lagu wadaa gelinka hore ee maanta inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isagoo soo gabagabeynaya socdaalkii uu ku joogo wadanka Djibouti madaxweyne Xasan Sheikh wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugnaayeen gudaha dalkaasi Djibouti saacadii aanu ka soo gudubnay iyagoona halka kulamo kala duwan kula qaadanayeen madaxda sare ee wadanka Djibouti ujeedka ugu weyn socdaalkiisa ayaa ahaa in la adkeeyo xiriirka labada dowladood iyo waliba in ay saxiixdaan heshiisyo dhowr oo ku khotama horumarinta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti khudbad dheer ayuu shalay ka jeediyay kulan ay yeesheen baarlamaanka dalka Djibouti khudbadaas oo uu kaga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo waliba garab istaaga walaalaha Djibouti sidoo kale kulamo gaar ah ayay wada qaateen isaga Ismaaciil Cumar Geele oo inta badan quseeya xaaladda gobolka gaar ahaan siyaasadda dhanka arrimaha dibadda ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Ismaaciil Cumar Geele iyo Xasan Sheikh ayaa hore sidaan oo kale u soo wada shaqeeyeen waqtigii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu dalka madaxweynaha ka ahaa haatan oo uu mar labaad dalka ka yaana waxa ay qorsheenayaan inay wada jaan qaadaan oo ay horumariyaan xiriirka labada dowladood dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo lagu waday maanta markii uu soo gabagabeeyay safarkiisa Djibouti kadib inuu u ambabaxo dalka Itoobiya ayaa ka baaqday safarkaasi sababta ugu weyn ee baaqashadiisa ayaana lagu sheegayaa inay tahay sida ay xaqiijinayaan macluumaad hordhac oo laga helayo in cudurdaar uu ka yimid dhanka dowladda Itoobiya oo sheegtay in hadda jadwalkooda uu buuxo waxa uu noqon lahaa safarkiisa lixaad ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagi lahaa dalka dibadiisa tan iyo markii la doortay 15 bishii May ee sanadkan wuxuuna isla shalay isku maray dalalka Kenya iyo Djibouti goor wuxuu safar ku kala bixiyay dalalka Eritrea Turkiga iyo Imaaraadka Carabta saraakiil ka tirsan villa Soomaaliya oo aan la xiriirna way ka gaabsadeen ka hadlida safarkan iyagoona ku soo koobay inaanan wali la gaarin horena waxa uu jiray tallaabooyin ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo la aaminsan yahay inaysan Itoobiya soo dhaweyneynin markii go'aankaasi ay heel u noqdeen dowladaha ay ku loolamayaan biyaha webiga Niil gaar ahaan Masar Itoobiya ayaa la aaminsan yahay inay saameyn xoogan ku yeelan karto arrimaha siyaasadda gudaha ee Soomaaliya gaar ahaan culeys ku noqon karta dowladda federaalka marka laga hadlayo joogitaanka dowlad goboleedyada qaarkood oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Somaliland toddobaadkii la soo dhaafay Itoobiya waxaa booqday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la aaminsan yahay in isaga iyo villa Soomaaliya is hayaan isagoona la kulmay madaxda federaalka Itoobiya oo ay ka wada hadleen sida lagu sheegay war ay baahisay Itoobiya ka oo lagu xusay inay ka wada hadleen iskaashiga labada dhinac ee dhaqaalaha iyo amniga geesta kalena madaxda mucaaradka iyo Muuse Bixi ayaa maanta ku kulmayaan gudaha magaalada Hargeysa waxaa lagu wadaa madaxtooyada Somaliland maanta inuu ka qabsoomo kulan gaar ah oo dhaxmari doono madaxda mucaaradka Somaliland iyo Muuse Bixi kaas oo diiradda lagu saari doono halka gaarista arrimaha siyaasadeed iyo waliba sidii isafgarad looga gaari lahaa qodobo ee maalmihii ugu dambeeyay ka doodayeen dhinacyadani kulankani oo shalay lagu waday ayaa baaqday sabab la xiriira aaska sheekii weynaa ee lagu aasayay gudaha Somaliland waxaana la filayaa maanta inuu kulankaasi ka dhaco magaalada Hargeysa isna hor fadhiistaan Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha Somaliland Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucud iyo waliba Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga Wadani kulankan oo noqon doono mid arrimo dhowr ah lagu lafaguro ayaa dhinacyadu la filayaa in isfaham weyn ay ka gaaraan isla markaasna ay ka soo baxaan qodobo guul u noqon kara xaaladda siyaasadeed ee cakiran ay ka jirta deegaanada Somaliland ayaa waxaa ka taagneed siyaasad kacsanaana kadib markii xukuumadda Muuse Bixi ay ku dhawaaqday in la daafurayo
axsaabta siyaasadda islamarkaasna taa ee keentay in xubnaha mucaaradku ay ka horyimaadaan sheegeen inuu tani uga gol leeyahay muuse biixi muddo kordhin isagoo oon dooneynin in waqtigii loogu talagalay doorashada uu ku qabto maadaama waqti yar uun ay ka harsan tahay doorashada balse xukuumadda Somaliland ayaa ku doodaysa in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto sidoo kalena axsaabta siyaasaddan iyaguna hooshooda waqtigii loogu talagalay lagu soo gabagabeyn doono arrintaa ayaa keentay in iska qabsi xoogan uu yimaado xitaa ay dhacaan mudaharaadyo dhiig ku daatay waxaana ugu dambeyn dadaal ay sameeyeen qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgarad lagu guuleystay in is-horfadhiisiyo dhinacyadan wadahadalna uu furmo kulamadan oo maalmihii ugu dambeeyay si isdaba jooga uga soconayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo isla markaasna natiijo weyn ay ka gaaraan dhinacyadan ku shirsan gudaha magaalada Hargeysa waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa caqabad hor leh ayaa la soo diristay ganacsatada Kenya ee qaadka loo fasaxay ganacsatada qaadka ayaa waxaa laga yaabaa in dhoofintiisa ay sugaan in ka badan intii lagu waday in lagu geeyo Muqdisho maalin uun kadib markii ay Kenya iyo Soomaaliya ku heshiiyeen in dib loo bilaabayo dhoofinta jaadka sababta ayaa lagu sheegay in shuruudo lagu xiray kadib markii dhowaan la ansixiyay xeerarka cusub oo dhanka dalaga beeraha ganacsatada iyo beeraleyda ayaa si weyn u soo dhaweeyeen dib u furista suuqa Soomaaliya balse waxay ugu baaqeen dowladda inay dedejiso bixinta shatiyada dhoofinta sida uu dhigayo sharciga cusub ee dhowaan soo saartay dowladda Kenya gudoomiyaha ururka ganacsiga qaadka ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in hay'adda beeraha iyo cuntada AVA aysan wali shatiyada siinin ilaa 500 oo ganacsatada qaadka dhoofisa si degdeg ah ayaan ugu baahanahay shatiyada sababtoo ah marari karno qaadka annaga oo aan u hoggaansamin shuruucda ayuu yiri Kenya iyo Soomaaliya ayaana jimcihii dib u nooleeyeen xiriirka labada dal kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay isku afgarteen in ganacsigii iyo duulimaadyadii labada dal uu si degdeg ah dib ugu bilaabmo balse markii ugu horeysay ganacsatada jaadka Kenya ayaa waxaa looga baahnaan doonaa inay u hoggaansamaan shuruucda dalaga qaadka kaas oo xeerarkiisa isbedel lagu sameeyay sanadkan sida xeerku dhigayo dhoofiyaasha qaadka waa inay diiwaan gashadaan oo ay shati ka haystaan AVA ganacsatada ayaana sidoo kale looga baahan yahay inay helaan ogolaanshaha dhoofinta shixnad kasta qof kasta oo dhoofiya qaadka bilaa shati waxa uu mutaysan doonaa xarig ilaa 3 sano ama ganaax dhan 5 milyan oo shilinka Kenyaanka wasiirka beeraha dalkaas Kenya ayaana dhowaan hadalkaasi ka dhawaajiyay xilli uu ka warbixinayay xeerarka wax laga bedelay markaanu eegno qodobada Kenya iyo Soomaaliya ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in la iska kaashado arrimaha ammaanka gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab xogaha sirdoonka la isdhaafsado xuduudahana la isku furo in danaha labada dal si wadajir ah looga shaqeeyo in la ixtiraamo madaxbannaanida iyo in la iska kaashado arrimaha bini'aadanimada Kenya ayaa waxay ogolaatay in dib loo bilaabo duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ee hore loo hakiyay waxaa la fududeeyay caqabadihii ka jira fiisaha Kenya gaar ahaan waxaa la fududeeyay mas'uuliyiinta dowladda dadka haysta baasaboorka diblomaasiga iyo kuwa haysta service baasaboorka waxaa kaloo lagu heshiiyey in dadka haysta baasaboorka caadiga ah muddo 10 maalmood lagu siiyo fiisaha in guddiga ka shaqeynaya dhaqangelinta heshiiskan ay kulmi doonaan bisha soo socota ee Agoosto sida hore u sheegeen beeraleyda qaadka ee dalka Kenya khasaare lixaad leh ayaa ka soo gaaray xayiraadan la saaray qaadkii ay u dhoofin jireen wadanka Soomaaliya jaadka la geeyo Soomaaliya ayay sheegeen inuu fursad shaqo u ahaa dad badan kuwaas oo ay sheegeen inay haatan shaqo la'aan noqdeen Master Munjuri oo ah gudoomiyaha urur ay ku mideysan yihiin beeraleyda jaadka ee dalka Kenya ayaa sheegay in maalin walba ay khasaaraan lacag dhan $150,000 maadaama aysan jirin suuq la geeyo qaadkii ay Soomaaliya geey jireen guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen channelka Hubal News fadlan daawade haddaad ku cusubtahay channelkan qayb ka noqo saaxiibada ku xiran oo ka hela wararka joogtada aan halkan ku baahina aragtidiinana qaybta hoosan ugula wadaaga muuqaalkan uu sii shargareeya asxaabtiina laagtiinana waa inoo dhiiragelin waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka channelka Hubal News